تيم كازو ميرو بقى جوجان وراديات بدين سلام لفتي قال بدو من والبا جوجتان بقول الله فريد طبعا قرآن عدد ديزاين كو سلامي بقردي ما سوق مني بقردي عوشه لفتي قال بدو شنت سومالي waxaa idin leenahay تيم كازو ميرو بقى جوجان تيم كازو ميرو بقى جوجان madaxaya عادي بزنس كان aad baan ugu faraxsanahay ما شاء الله and you are doing good oo good aan kuleeyahay halkan ma ku qoraya waan duuleynaa soo xagga socona ilaa xagga xirsamahano nadiif ani adiga heesto qoras ana furaayabe tigidka waxa idin dhahay iyo goorta aan duuleyn halkaas ma soo galin doonaa Soomaa aniga qays waa sidii ma taqaanaa un duulnaydee aad ma duulna ma socona weeya halka beelista banaani ma ana barxaani baqdeeni ma ana yarkan wuxuu ku tarjama umarayaa sidoo ku arki lahaa muuqaal ay qaawan tahay saaxiibtiisa wuxuuna ku dhaaranayaa inuu tirtiri doono bal ila daabo ثم بالله ثم الله اقسم بالله العلي العظيم انه كل صنع كتابك الهي وعرفتها في الله تكفت المقاله وما يسمع كوس والله ثم بالله ثم الله يوكل صنع وترترايا حرانا ترترايا بصوص waxaan ahay Nicimo Joker ina adeerteed saaxiibadeed ay qof ay isaga dhow yihiin uu si jirnin haday noqoto xagga xiriirka ka warqabka iyo iswaraysiga intaba qof iiga dhow ma jiro waxaan rabaa halkan inaan ka cadeeyo in Nicimo Joker lala guursan ilka case uu sanaa kala guursan Nicimo Joker inaan la furinin hadalka ka soo yaray ilka case oo aad maqasheena in uu ku imaaday sababtaasna waxaad ku ogaan doontaan qofkii uu afkiisa ka soo yeeray hasugu waayina laakiin waxaan rabaa inaan ku cadeeyo haddaad hambalyeyn lahayd haddaad farxi lahayd haddaad nixi lahayd haddaad ka xumaan lahayd haddaad jeclaan lahayd intaba inay arrintaasi branki ahayd waxna ka jirin Nicimo Joker la guursan ilka case guursan arrintaana waxba ka jirin aniga waxaan qofka kaliya ugu dhow warbixintaasna keeni kara arrintaas waxba kama jiraan brank وجوكر عذرد وأيو مجها عذو عجيب وجوكر عذرد قبري قوهي قوم ملئ علاي ونمع عاي ماليدي هو عبلس هو بندي ونمع عاي ماليدي هو عبلس هو بندي أنا وعيش عن عذها وأنكو كاركة أنا وعيش عن عذها وأنا وين عسار عقاهم إيش هدك تبها في ما أتكلم. جرى إجابة على سنة إجابة إن نعيمة جوكر ما أنت بني آدم كويس كين دوجين for a long time صاحبها هين سناب شات كان نعيمة جوكر وحيسين لو وسوا بنشري إجابة تكان كإجابة every time على سوق الانشري تتصاحبه واي تبيست فريم واي إجابة يا تايمر إجابة وجبر كان عصته وجبر شخصيته وجبر مجالات وجبر جريو كل مجالات so مركا أدينكم مركا تدعو على سنة إنسان always كودت كسو بارورد labadan qof laba qof istagaalaya ma hadaad rabtaan inay istagaalaan ama isbaabi'iyaan runtii isma baabi'inayaan ninkaana ilaaha u baneeyay laba gabdhood inuu guursado wax bala ka dhacday ma wax hadda idin kugu horeysa miya nin laba xaas leh dad afar leh soo marka adinku dadka ha colaysanine labadan gabdhoodna ayaga for a long time iswato saaxiiba ahay adinku guryahaad ku mashquulsantiin intaad xagga iska dhigtaan hadal yu sakaa tagin wallahi am serious hadal yu sakaa tagin ayaga best friend hadalna meesha kaaga ma banaan wax la falanqay meesha ma yaalan waxa ilka casqay sabar jecel u soo hees waayay hor jeclowda quranka lacag ma bixiso lacag ku hees u baahan yahay garxajisna waa dadka 30 sano oo Soomaaliland taagantay waayay madaxnimo habar wala waa dadkii Soomaaliya oo dhistan geelood inta la qaatay ka daba tagi kari waayay marka wax wala oo hinaaba lacag bay ku bixinayaan habar jecel saasay taagantay laakiin dadku waxay ugu xantaan hadalkan iyo xayeysiintan iyo hadalka heli ogida in adiga ka keeno xayeysiinta halkeed ka baratay ma idaacadii xamrabad ka soo shaqeyn jirtay horda fiir amar fadlan noo saar subscribe ilaahay khayr ha ku siiyo wax degdegaad ku faraxday ilaahay ha ku siiyo ku soo bir xaq soo TV ana wararkii ugu dambeeyay oo hadda soo dhacay ayaan ka dabageenayaa sida halka ku aragto waa warar been abuur ah oo beeraha bulshada qabsaday waxaan ognahay in xaalay toole la soo galiyay muuqaal iyo warar warbixinooyin kala duwan oo la leeyahay inantii ishaabe ahayd
inankeedii yaraa ayaa la dhaawacay oo waxa soo weerartay Niciima Shookar oo masayrtay ayaa sidaa u diiratay muuqaallo aan jirin dad bari hore Mareykan isku laayay dumar xaafada isku qabsaday meel laga keenay muuqaaladan maynu garanaynaa haddaba ishaabe horta waa lagu soo qoray baraheeda Snapchat in waxa weeye uu qoraal ku qornaa shalay hore ahaa waxa weeyaan inankayagii masiibaa nagu dhacday oo inankayagiiba la toogtay ama waxa weeye xabad lagu dhuftay haddaba waxa weeye ugu dambeyn ishaabe waa loo soo celiyay baraheeda bulshada iyadoo waxa weeyaan ay ka shaqeeyeen Niciima Shookar iyo Ilka Case iyo dad kale ma ogtahay arrinta la yaab kale in waxa weeye sida ay u dhacday oo ay dadka qaarkood moodayeen inay run tahay balse ugu dambeyn waxa weeye sidaasi ma yahayn halka ku aragto dadkii wali waxay aaminsan yihiin inay ishaabe iyo Ilka Case lafta geela badhay isku yihiin oo ay biraha isu sudheen balse arrintan wayna soo gabagabeynayna igama qurunto igama gubato baraha bulshada dad fara badan oo Soomaaliyeed ayaa aaminsan oo la shahwareeriyay oo dhiiqa lagu haloo galiyay oo lindhanaanta loo qasay oo moodayaba sheekadaniba inay tahay run oo ay Niciima Shookar raali ka tahay in xaas labaad uu Ilka Case la guursado war xaqiiqa ah baan ku hayaa waxaan ku leeyahay kado loobso koob intaa leegana soo qaado oo caana geela ah oo dhaka shabiye ah sida halkaa ku aragto waxa weeye abtiliibaan oo waxa weeye muuqaal run u eeg soo duubay isagoo oo leh waxa weeyaan kulley wax walba uu ka og yahay haddana abtiliibaan sidoo muuqaalka u soo duubay dad badan baa moodaya inay Niciima Shookar iyo Ilka Case weli waxa weeyaan waxa uu sheegay ishaabe iyo Ilka Case ay guur xalaal u dhaxmaray abtiliibaan wuu og yahay sheekada dhabta ah iyo sida wax u dhaceen sida halkaa ku aragta waxa weeyaan muuqaal waxa weeyaan la faafiyay oo baraha bulshada qabsaday waa wiil Soomaaliyeed oo kitaab quraana gacanta saaray oo leh waxaan ku dhaaranayaa gabadha ay saaxiibka yihiin uu ku leeyahay waxaan muuqaalka shugta culus ee aad ii soo dirto ma faafin doono markaa sidaa igu soo dirtaan daawado ayaan hawada ku cunaya waa dhacdooyinka ugu la yaab kale aan hore loo arag muuqaalka waan qariyay mana wanaagsana in waxa weeye la soo faafiyo isagoo gacanta saaraya balse runtii waxa weeyaan dadka fara badan ayaa si siyaabo kala duwan uga falceliyay ninkaas wuxuu dhaarta ku marayay rabaa inuu inantaas kaga soo qaato muuqaalka ay saaxiibka yihiin waxa weeye iyada oo shugta culus ay u soo dirtay una soo dirtayaana mooye balse muuqaalkan gabadhii baa soo faafisay oo ka duubaysay markuu sidaas u saarayay gacanta waa geesiyad wayna soo geysay baraha bulshada sidaad halkaa ku aragta waxa weeyaan amaalkayse oo soo bandhigtay waxa weeyaan muuqaal la yaab leh iyadoo sheegtay in dad Soomaaliyeed ama dumar Soomaaliyeed ay sharmalka ku soo xumeeyeen muuqaalka waxa duubtay amaalkayse kulley garan mayno amaalkayse waa gabadh Soomaaliyeed oo reer Ingiriis ah waxa weeye dad fara badan ayaa hadda aad u taageera balse waqtiyada ka mid ah gabadhaas oo la dulminayo ayaanu arki jirnay oo nana isguursadeen baraha bulshada marba dhinac loo faafinayo oo xalaal ah haddaba waxa weeye waxaasoo dhan kama hadlayno inantaasi waxay leedahay gabdhaha Soomaaliyeed oo dumar hala saaxiibina gabadh walbana hala saaxiibin mana wanaagsana dumar inay la saaxiibaan gabadhi waa cawra bay leedahay mida sira qabateen oo waxa weeye muuqaalka ahaysi ah saaxiib dhaba ahaydeen ayaaba sidaa sharaftaada ku bahdili karta wararka ayaa afkaleen falaqayn doonaa waxaan ku leeyahay bilow ilaa dhammaad ila soco wararka degdeg ah hadda iska soo daba dhacaya fanaanka caanka ee Ilka Case Qays oo gaarisa ku sii sheeday isagoo safara Ilka Case gabadhaas oo lagu magacaabo Naalo oo ah gabadh ganacsi leh ayaa waxa weeyaan safar u geliyay xaggaas maalmaha foodka inagu soo haya warar sax ah aan ka dabageeyay ma haysataa koobkaagii dhaka shabiyaha ahaa ee caana geelaha ahaa ee sheekooyinkan dhabta oo kale aynu halkan kula wadaagi jirnay war la qabaa xiisa maraha ee waxaynu ognahay Ilka Case Qays iyo Niciima Shookar inay yihiin laba lamaano oo qurux badan mar kastana ma wacna in waxa weeye dadka loogu celceliyo oo la yiraahdo waa sidaa sheekadu balse waan soo gonaanudeyna Ilka Case Qays iyo Niciima Shookar horta ilaahay ha isu barakeeyo muuqaaladan dadkii faafiyay ahaadeen yoo ha qofkii ugu horeeyay muuqaalkan soo galiyay baraha bulshada
sheekadaniba waxay ka soo farcantayba Niciima Shookar bay ka timi sheekaduba Niciima Shookar waxa weeye filimkii ay soo samaysay ayaa baraha bulshada qabsaday waxa weeyaan sheekadu waxay ku bilaabantay sideen ognahay gabadhaas Ishaabo iyo saaxiibkeed oo isku dhacsanaa ayaa loo kala heelinayay maadaama oo saaxiib lilaahi ama dhab ah ay yihiin Ishaabo iyo Niciima Shookar taad arkaysaba oo baraheeda bulshada ay ugu xayeysiin jirtay muddo 2 sanadood ganacsigeeda Niciima Shookar miyaad aragtay oo waxa weeye ganacsi ay leedahay iyadu xayeysiinaysa waa maya baraheeda bulshada haddaad gasho waxaa soo helaysaa 24 saac ee mar walba maalinkiiba muuqaalo waxyaabaha dumarku isku cadeeyaan oo lagu xayeysiinayo haddaba gabadha iska leh 70% alaabtaas la xayeysiinayo waxa iska leh waxa weeyaan kulli Niciima Shookarba way leedahay waxyaabo ay iibiso balse 70% alaabtaas la iibinayo waxa iska leh Ishaabo ayaa badideeda waa saaxiibka dhow xataa alaabo ay leedahay bay u iibsaa Ishaabo Niciima Shookar alaab ay iyadu leedahay ay iibsaaba waxa weeyaan dhacdada la yaab kale ayaa ah inay dad fara badan aaminsan yihiin oo ay ku seexdeen ay ku soo tooseen Niciima Shookar iyo waxa weeyaan Ishaabo inay waxa weeyaan maanta noqdeen laba lamaane oo waxa weeyaan ilka casaqays oo sayidooda wada yahay balse sheekadaas halkaas ku soo gabagabowday waxaana wax been u ahaa hatta wadaga arka gabadhaas soo dubtay muuqaalka waxa weeyaan Niciima Shookar in adeerteed weeyaan ruma waxa tir weligay muuqaal maan duubin balse dadka Soomaaliyeed ee boqolaalka milyan ku daawasho kor loo dhaafiyay qaarkood ay aaminsan yihiin in sheekadu sidaa ahayd ayaa kaga shaahir saar aan ka dabageeyay ee dhacdada kale ee la yaab kale ayaa ah waxa weeyaan gabadha lagu magacaabo Amaalkaysi goormaa dumarka sharmalku xumeeyay wadaqa qoraalka halka ku arka ay ku soo qortay waa xaqiiq oo ay dhaaranaysay leedahay waa sidii igu dhacday ee dumarka sharmalka ku nool ay soo galeen kulley garan mayno inantaas waxay dumarkaas ku soo sameeyeen balse waa muuqaalka ay soo dubtay maanta iyadoo waliba baaq u dirtay dumarka Soomaaliyeed oo ay leedahay weligaa la saaxiibin gabadh ka fogow bay tir ka fogow wixii ugu dhacay oo kale ay kugu dhicin wax la qariyana qulun baa ku jira ee Amaalkaysa wixii ku dhacay garan mayno balse waa waxay qarisay waxaan ku leeyahay kamid ah wax